السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا يوتيوب channel كيجا وجوديني نعيمة أخايد أو إذن لا إسكسر نقدر نعكسن ما أنتوا حنش على السنة هذه لو ذاقة ميك اب آد وفضل أن أقرح بدن وقبل ميرو الباتكو عادي كرتان حلفة هذي نقطة أرس هذي نقطة هذي أوتين نقطة يعني قعنت هذا كعيل بحياة لدها marka kooda waxaan ku bilaabay sunniyaha markooda waxaan isticmaalay qalin sunni brown ah kadibna waxaan isticmaalayaa waa eyebrow gel baan ku shalaynaya korkor ayaan u shalaynaya kadibna waxaan soo isticmaalayaa concealerka ayaan ku qorayaa khasam ahaan gabdho concealerka aniga isticmaalay inaad isticmaashaan yani productiga aniga ii shaqeeya khasam ah inuu adigana ku shaqeeyo markaas wixii aad haysatid ama ku shaqeeyo ayaad isticmaalaysaa kadibna waxaan isticmaalayaa concealer kacadkii aan sunniyaha u isticmaalay indhaha korkooda si eyeshadowgayga uu u soo baxo qurxna u ahaado eyeshadowga waa simple laba color ayaan isticmaalay marka koowaad oo base ahaan waxaan u isticmaalay color brown iyo pinkish isku jira ah si fiican ayaan u balan-garayntu waqti ayay qaadataa gabdho ha degdeginina waqtigiina qaata markaad balan-gareeyay kadib waxaan soo qaadanayaa brown oo dark ah kadib waxaan marinayaa geeska isha kadibna concealer ayaan soo marinayaa geeska isha si aan u sameeyo cut crease-kan khasam aha inuu sulub ahaado oo sinaado kaliya inta aad adigu rabtid inaad gaarsiisid ama ay ku cadaato isha ayaad cadaynaysaa kadibna eyeliner ayaan soo marinayaa eyelinerada qaabab kala duwan ayaa loo sameeyaa laakiin badanaa aniga shade-kan ama qaabkan ayaa indhahayga kusoo baxa gadaal uu u balaaran yahay horeyda isha qaybteeda horena wuu u dhuuban yahay kadibna eyelashes ayaan soo saartay labada sunbaan badanaa isticmaalaa kadibna wejiga ayaa nadiifinaya intaan wejiga kuda gelin waxaa laga yaabaa eyeshadowga markaan marinayay in wax igaga soo daateen wejiga soo intaadan wax producti u isticmaalin wejigaaga iska nadiifi kadibna waxaan isticmaalayaa concealerka waxaan marinayaa indhaha hoostooda garka sanka iyo foolka kore aniga makeupkan wax maantay foundation ma u isticmaalin badanaana foundation ma isticmaalo haddii markaas ma aragtay aanan meel ma aragtay aroos yaxsis kaleeto aan u soconin marka weliba balan garaynayaa blendingka sida hore idinku sheegayba waqti buu qaataa si fiican u balan garee haddii aad rabtid makeupkaaga inuu qurux kusoo baxo gabdho haddii aad wax su-aalo ka qabtaan waad isoo weydiin kartaan haddii aad fiidiyada noocan oo kaleeta ka heshaan ila soo wadaaga commentiga hoose si aan idinkugu soo badiyo haddii aad jeceshihiin inaad aragtaan anoo makeupyo badan oo kala duwan sameynaya isla soo wadaaga insha Allah waa sameynaya sidoo kale waxaan rajeynayaa inaad dhiirigelisaan oo videoga ii like garaysaan ina sii share garaysaan insha Allah isla shaqeyn wanaagsan haddana waxaan sameynayaa contour ande contourka marka badan waxaan geesaha goomanka sanka iyo foolka koreeto saddexdaas meel ayaan mariyaa kadibna waa balan garaynayaa sidii caadada ahayd haddana waxaan isticmaalayaa soo ujeedaan setting powderka marka waxaan sameeyaa sponge ayaan kusoo qaadaa kadibna furka caaga ayaan maaragta iskaga reebaa wixii maaragtay saa'ida ama waxaan sameeyaa gacantayda geeskeeda ayaan iskaga reebaa wixii maaragtay saa'ida kadibna indhaha hoostooda iyo waxaan mariyaa meel walba aan concealerka mariyo indhaha hoostooda wejiga kore iyo garka isla marka aan powderka isticmaalo isla markaas kama tiro waan u dhaafaa haddana waxaan isticmaalayaa waa bronzerka waxaan marinayaa meelihii aan soo mariyay contourka kadibna si fiican ayaan u balan garaynayaa isaga laftirkiisa meel walba aan contourka soo mariyay ayaan marinayaa kadibna waxaan ku xijinayaa waa blushka ayaan marinayaa daamanka isla socod wanaagsan guys waxaan rajeynayaa si fiican u sharaxay oo markii ugu horeysay aan makeup soo gelinay YouTube-ka soo haddii wax ka khaldamaan iskaga dulqaata aan isa saxna insha Allah wixii ma aragtay su'aalaan wad soo weydiin kartaa insha Allah
kadibna hadda waxaan ka tirayaa wixii powderan ma aragtay wajiga ogaga tagay kadibna waxaan sameynayaa contourkii sanka geesihiisa ayaan sameynayaa guys sidaad u jeedaan baad waxaan dhameeyay wajigii waxa kaliya ii dhiman waa lipstick-ta waxaan isticmaalayaa lip liner oo brown ah iyo lipstick nude ah labadaas ayaan isku darayaa makeup-keeni sidan ayuu ku soo baxay waxaan rajeynayaa inaad dhamaantiin ama ka hesheen ama wuxuun aad ka faa'iideen haddii taasi dhacdayna hanaga ilaawin inaan sabad gelisin wax salaamo